daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar oo nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub. Assalaamu calaykum. inta aan bilaabin qisadeeda iyo saan u galay bahaladaas ay isku baahaystay inay miiraan dhiigga bini'aadamka siiyaan shaydaan waa inaan sheegaa waxay yihiin taako bitaago. meeshan kuma soo bandhigi doona waxaad ka daawatay filimaanta ama aad ku aragtay fiidiyoya ee waa asalka iyo runta aan indhahayga ku soo arkay una soo joogay. magacoodu waa Illuminati Society Masonic White Mountain Freemason. dadkan waxay leeyihiin magacyo aad u badan iyo macbad ay ku caabudaan waxay ku sheegeen ilaahooda. waa bulsho u shaqeeya si madax bannaan ahna qarsoodi ilaa maalintay soo ifbaxeen waxaana madoobaatay sumcadda bulshada bulshooyinkii sirta ahaa ee ka horreeyay sida Sphinx, the Neolithic Alexander the Great Noah iyo waxay ugu magac dareen the gods who loved women iyo kuwo kale oo fara badan. waxaynu muuqaalkan ku bartilmaamsanaynaa ururka ugu saameynta badan ururada hadafka qarsoon ee dunida ka jira waa ururka loo yaqaano Illuminati. ururo fara badan baa magaca Illuminati oo waqtiga dambe magaca qaatay laakiinse inagu si hoose ayaynu u eegaynaa asalka meesha uu ka soo jeedo magacani iyo afkaartay aaminsan yihiin Illuminatigu. kelmadda Illuminati waxay ka timid Illuminatus waana kelmad laga soo waariday luqadda Laatiinka micno ahaana noqonaysa ilays. luqadda Laatiin waxaa ka soo farqaday luqado fara badan. qarnigii 17aad Yurub waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo xambaarsan aqoon iyo xorriyad in wax lagu doono. dhaqdhaqaaqa aqoonta foodsaaro ka dhigtay waxaa u midaysnaa aqoon-yahano iyo mufakiriin ka kala socda afkaarta cilmiga buuga ku xeel dheer ee hadafkooda koowaad ahaa inay ku dagaal galaan aqoonta iyo qalinka. dhaqdhaqaaqa aan sida dabiiciga ah ku bilaabmin ee aqoon-yahanada reer Yurubi ahi hogaaminayeen dagaal waxay ku kala jireen dhaqan iyo diin oo talada gacanta ku hayay waqti isku dhow. isla qarniga 17aad ayaa mar kaliya waxaa istaarmay isbedel doon wadamada Yurub lagu doonayay in lagu casriyeeyo siiba Jarmalka. waxaa la isugu iman jiray shurdaceedyo iyo kulamo qarsoon oo ay abaabulkooda lahaayeen aqoon-yahano ka soo jeeda Jarmalka. ururka Illuminati wuxuu u dhisan yahay sida ururada kale ee dunida ka jira. madax iyo mijo ayuu leeyahay. qaab dhismeedka ururku waxa ugu sarreeya gudida fulinta kuwa ilayska helay habeen iyo maalin si isku mid ah wax u arka. isla guddiga ayaa iska dhex doortay gudoomiye guddi hoosaad kuwa aan weli ilaysku helin laakiinse garab salaaxa leh ayaa ka hoos shaqeeya guddida fulinta. waxaa dabaqa ugu hooseeya la isugu geeyaa taageerayaasha indhasracaadka loo dhigay ee aaminsan inuu ururkani ciise soo wado. waxay leeyihiin xafiisyo iyo astaamo u gaar ah sida fargalka astaantooda ku xidhan tahay oo ay sitaan iskuna gartaan. haddii aynu soo koobno nimankan la magac baxay Illuminati himilada ay leeyihiin ma aha mid qof caadi fahmi karo. waxaynu odhan karnaa waxay la shaqaystaan dunida bini'aadamka ka qarsoon waxayna la macaamilaan jinka. waa niman jecel inay dunida maamulaan afkaartooda u gaarka ah. awoodda waxay saaraan dhalinyarada jaamacadda ku jira inay ururka ku soo biiraan. inta badan markaad ka mid noqoto hadiyad baa lagu siinayaa xataa inay shaqo ku siiyaan oo darajooyin aanad aqoon iyo karti ku gaadhin si fudud lagugu dalacsiiyo. hay-adda dalka ayaynu odhan karnaa inuu nidaamka shaqasiintu iyo dallacaaduba ka jiraan iyo dadka saamaynta leh si uu fikirkooda u sii noolaado. waxaa kaloo awoodda saaraan in bulshada dad ku dhex samaystaan oo ay ka dhaadhiciyaan afkaartooda. waxay abuuraan ashkhaas bulshada uga soo dhuunta inay xaqooda u doodaan iyo caafimaadka inay kala shaqeeyaan. waxay sheegtaan inay cadaalad u taagan yihiin oo dhiirigelinayaan mashaariicna ku bixinayaan iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha ugu jilicsan ee markaa cadaaladda u baahan iyagana ka muuqan karaan. laakiinse cadaalad shuqul kuma laha. waa lagu soo gabanayaa meelaha ay ugu jilicsan yihiin inay bulshada ka soo weeraraan. waxaa ka mid ah caqiidooyinka la halmaala dumarka. Adam Smith oo ninkii soo jeediyay inay dumarku shaqeeyaan guur kastana 2 cashuurood laga qaado. waxayna inta badan ku dhiirigeliyaan waxbarasho iyo sinaan waa gender equality iyo shaqo. waxay kaloo bulshada ka soo galaan siiba Yurub in wax kasta la isweydiiyo oo la iska aaminin ama la qaadan waxaan caddayn loo hayn iyagoo markaa ku socda uguna soo gabanaya diinta. Illuminatigu mowduucyo lagu baraarujiyo bulshada reer Yurub ayay ka dhex bilaabeen siiba Jarmalka. gobolka Bavaria ay dadka ku kiciyaan waxay farigeliyeen dawladdii markaa ka talinaysay Westphalia
waxayna isku dayeen inay maamulka iyo kaniisadda oo wada shaqayn ka dhaxaysay afgembiyaan. faragelinta aadam iyo kooxda la mabaadi'da ahiba arrinkaa way eedeen oo markiiba waa laga hor yimid. gacan Pureland waa lagu qabtay. xukunkii Bavaria ka talinayay oo uu hogaamiye ka ahaa Charles, gacansaarna la lahaa kaniisadda Katoliga oo iyadu u qaabilsanayd fadwooyinka diiniga ah ee lagu ridaynayo nimanka Illuminati, ayaa ku guuleystay inay qabtaan xubno ugu firfircoon. 1785 ayuu Charles Taylor ku guuleystay inuu gebi ahaanba mamnuuco ururka Illuminati, wuxuuna wareegto ku soo saaray in dhammaan ururada aan dawliga ahayn kana diiwaan gashanayn xukuumadda ay mamnuuc yihiin haddii suuqa lagu dhex arkana xabsi lagu dhaadhicinayo. Illuminati iyo ururadii kale ee ay isku hadafka ahaayeen cabsi ayaa ku timid, waxayna door bideen inay isqariyaan, laakiinse hadafkoodii kamaysan hadhin oo si qarsoodi ah bay u sii wateen ajandayaasha ay damacsanaayeen inay fuliyaan. guri hoostii ayay la tageen iyo meelo aan laga warhayn kulamadooda. fursad kale ayay sugeen. fursadda ay sugayeen ayaa soo baxday isla waqtigii qarnigii 17aad ee Bavaria. dhaqdhaqaaq la mid ah kan laga wada Jarmalka ayaa ka socday Faransiiska oo aad loo dhex galay heer ay noqdeen inuu bilaabay in kooxo la isku abaabulo oo kacdoon toosi ka dhex istaarmo bulshada. waxaana mudaharaadii lagala hor yimid xukunkii boqortooyada Faransiiska iyo kaniisadaha ayaa u fatahay oo saameeyay wadamadii kale dariska. iyadoo laga faa'iideysanayay kacdoonkii Faransiiska ayaa gobolka Bavaria laga bilaabay kacdoon la mid ah The French Revolution. kacdoonkii Faransiiska, Bavaria oo ahayd xarunta ururka Illuminati ayaa kacdoonkii soo gaadhay. cid kalena may hogaaminayn aan ahayn isla nimankaas oo fursadda sugayay. waxay heleen fursad kale oo siinaysa inay soo bandhigaan qorshayaashooda iyo ajandayaashooda u meel yaal ee lagu bedelayo xukunkii hore, wayna ku guuleysteen. dimuqraadi sinaan ayaa ka mid ahaa kelmadihii ay ugu khudbadeynayeen shacabka iyo inay horseedi doonaan oo ay cadaalad iyo khayraadka dalka loo sinaan doono. Illuminatiintu abaabul ballaaran oo ilaa iyo iminka socda ayay sameeyeen sidii waddan kasta loo gaarsiin lahaa ilayska ay heleen iyo afkaarta ku hoos jirta dimuqraadinimo, dhaqaale casriya iyo rag iyo dumarka oo siman, iyo inay xarumo magaalo kasta oo bulsho doori ku nooshay xafiisyo laga furo. waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dhaqaale xad dhaaf ah, dhaqaalaha oo loo isticmaalay inay iibsadaan hal abuur kasta, iyagoo ka duulaya inay u baahan yihiin dad caqli badan oo hadafkooda faafiya waxna ku soo kordhin kara. waxay gacanta ku dhigeen waxbarashadii heer dugsi ilaa heer jaamacadeed, inay dejiyaan iyagu manhajka yeeshaana meelaha afkaartooda sida weyn u qaybiya. waxaa ka mid ah Hollywoodka iyo music industry. shirkadaha heesaha waxay kaloo gacanta ku hayaan jaraa'idda iyo tiifiyada wararka dunida u qaybiya uguna caasan buugaagta noocay doonaan ha ahaadaane. waxay jecel yihiin in ay afkaartooda xambaarsanaadaan oo ay dadka iskala sii qabsadaan. mustaqbalka ay diyaarsadeen bulsho inay dhinac kasta ka soo galaan oo saameyn ku yeeshaan waa u qorshaysan tahay, waana u muhiim. Yurub iyo wadamada xiriirka ka dhexeeya way guuleysteen inay saameyn ku yeeshaan. waxay aaminsan yihiin in dunida meel keliya laga xukumo oo nidaam isku mid ah lagu wada shaqeeyo. waxayna aaminsan yihiin kitaabka Lucifer, waxayna ka shaqeeyeen sidii loo heli lahaa nidaam iyo xukun meel u wada jeeda. waa New World Order. astaanta Illuminatigu waa ishana waxaa ku keenan ama ku astaysan aboodi oy fircooniyiintii hore kala tageen geeska Afrika, siiba dhulka Soomaalida. taalada Maasonid waxay taalaa London. waxaa la isula wareegay magaalada New York, taas oo ay taris u noqotay Maasoniyada. intii dambe iminka waxay wadaan oo isugu biyashubatay in la tago magaalada barakaysan ee Jerusalem, waa Falastiin. waxaa ka go'an in diimaha qaar, gaar ahaan islaamka, meesha laga saaro oo diin uu dijaal calan sida u yahay oo midaysa dhammaan diimaha soo jireenka ah lagaga dhawaaqo beledka barakaysan ee Al-Aqsa. marka xaal sidaa yahay, ima muuqato fursad iyo waqti Soomaalida loogu ogolaado inay si uun madaxa ula kacaan ilaa qalalaase mandiqada isu joojiyo dhaco, ama ugu yaraan waqooyiga Itoobiya iyo webiga Niilka oo dagaal ka qarxaa inaga mashquulin karo indhahan Addis Ababa ee meel kaleba lahayn Soomaali mooye. waana sababta tallaabo kasta oo ku soo korodhay tahay mid dhulka inala sii goynaysa dadyaga kale ee mandaqada badhaare gaarsiinaysa. waxaan seexday hurdo aad u fiican habeenkii. waxaan soo kacay 10kii subaxnimo. waxaan soo aaday qolka fadhiga iyagoo ay fadhiyaan jannadii dunida. waa hooye. waan dhunkaday, waana salaamay. kadib waan quraacday, filimkan daawaday. waxaan qolka soo galay walaalkay, wuuna i salaamay. laabtoonkayga ayuu ku mashquulay.
kadib anoo shaaxu igu socdaba waxaa ii soo dhacday message dhinaca Gmail-ka waana furay kadib waxaan arkay gabadh qaawan oo geesa leh masna ku duuduuban yahay kadib waan dimiyay qolkaagan galay kadib waxaan akhriyay qoraalkii waxaana ku qornaa sida tan